runtii waxay ahayd maalin murugo leh maalin ay ummadda Soomaaliyeed masiibo ku habsatay maalin yar iyo weyn la wada dareemay sida ay ururada argagixisadii u yihiin masiibo ay u yihiin Bashir xiriyada oo iskoolka marka uu ka yimaado ayuu markaa alxamdulillah oo iga bedel jiray shaqada isaga ayaa joogi jiray ilaa iyo xiliyada marka la gaaray 12 saac oo galabnimo meelahaas marka kadib marka aniga xogaa yar soo nasto ayaa meesha tagi jiray markaas aniga aan ka bedeli jiray oo isaga guriga imaan jiray kaalinta sida gaarka ah inaga aan u lahayn oo aan qaadanay waxay ahayd samaynta dokumentiyada safarka warqadaha safarka dadajintooda sidoo kale fududeynta socdaalka dadkaas dhaawaca ah kulligood qasooyinka dhan waa xanuun badnaayeen laakiin midda ugu weyn aniga oo ilaa hadda aan ka fikiro waxay tahay wiil da'diisa ay tahay 30 iyo xoogaa 40 wali gaarin oo 30 iyo dhowr ilmo ka tagay madiina markaa tagnay dadkii iskoorigaha ugu keenay cijiyahooda iyo faraha bas ay ka muuqdaan aan fiirinay kor u qad qaadnay waxna ka aqoon weynay gabadhii ugu weyned oo ilmahay wixii aan dhalay ugu weyn bay ahayd maxay ahayd ayada sunbaan loo xamaali jirtay nafsadanada ayada maareyn jirtay ilmahayga kala bar ayada ay heesay aabay ilaad wala sana ama dhinti mooy ana niido waxa uu qaadsanaa intii dhinti aniido marka soo galay qaraasay waa imaaw